magaaladan waxaan ku soo gaarnay aasaar badan oo imika baaba'day sida imika aad soo aragteen guriga gudoomiyaha maxkamadda imika oo ahaanayay waxa ahaa dhisigii magaaladan ee waqtiga ingiriiska ka kaalay waxa ku ciyo dhinacan ka baabaasanaa gurigii xafiiska xeerlaaliya waxa ku xigay gurigan aasaarta qadiimiga ee dhagaxa isku maraasan oo waqtigii Ismaaniyiintii haddaan kaga wado xabaalaha halkaa ku yaala xabaalahaas waa xabaalo aan xabaalaheena la leekin ninkii aqalka ka soo jeeday baabaasan daasana xaggii ka xiga xeebta qarkeeya barasabka soo fariistay barasabka halkaas waa qal iyo fariistay daartu la galay xafiiskiisa halkaas oo ahaa dowladda laga xukumay dadka xukumay halkayda kada waxaa ahaan jiray aqal dheer oo islaa u dheer سيلع waxay ku caan tahay ciyaar la yiraahdo Seylici ciyaartaas oo ninka la oran jiray Seylici oo ugu tala galay dadka markii maxkamada soo gelin ama diinta soo gelin si ay u bartaan dadka waxa arkay ciyaaraya ciyaarta jecel si ay markay diinta u dhexgelin ayuu soo qaatay ciyaarta Seylici la yiraahdo sallallahu alayhi wa sallam markuu ka bilaabay wuxuu bilaabay si diintina u geliyo dhaqankoodiina aan ugu tagay ay wato halkan waxa ku yaala isna masjid kale oo weyn oo la yiraahdo Qiblatayn anigu waxaan soo gaaray labada qiblo oo taagan imika soo dhulku oogi intii maalintii aan soo xitaa hore ma jiro intii maalintii aan digeen ma jiro maanta gaal Talyaaniga iyo masaajidka baabiintiisa lahaa oo dhisay wasaaraddan kalluumaysiga Fawlera gaal Talyaaniga in Masri ah oo haddana Kristaan يا بابي ومساجد صدح المسجد عالم كله يرادو إما كوي كوه لنا يرادو مدكو يلا نيجيريا يا مدكو يلا السعودية يا كان صدح أصحاب تاريخ الشيخ إبراهيم اللي قصوا قال نبي إبراهيم دينة النبي إبراهيم بمركا يجوا عن مسلاية هايستين مركز صلاة واحد وتكني مسجد الأقصى يا لو تكني marka waa tii nabiga lagu siiyay amarka inuu maka inuu qaabilsiyo qiblad marka masjidkaas saddexda masjid ee caalamka ku halay mid kamid ah inaga inagu yaalo halkan markay dawladdii si baabays meelaha la naga duqeeyay ee barkiiba la maartay la doonayay la sii aasaar qaado masjidkaas ka mid ah waa isagoo oo dhisan ayaan ugu yimid wana kula Seylic ahaan dawladda soo gaaray dawladda Ismaaniyiinta kow Turkiga laba Ingiriiska saddex Soomaaliya afar dawladood adal waa Ismaaniyiinta haddana imika matala Ismaaniyiinta kale haddaan idhaahdo waxaan ka haynaa guriga fooqa waa la idhahdaa
kan yare dhagaxee malaasan laba qolaas ku haysata turkigu waxay la yimaadeen design ay leeyihiin annagaa le qoladii dhulkan aan lagu dhimin waxa koranayaan ingiriiskii baa dhisay horta dhisme ingiriis maaha turki inuu yahay iyo inuu yahay dowladdii islaamka ee ugu horreysay inuu yahay waa suuragal wax aasaarahoo kale iminka waxaa idinka dhow halkan meel la yidhahdo xabaalaha hindida oo halkaas magaaladan hindi iyo hindi iyo yuhuud iyo carab saddexduba halkan way deganayeen sekad halkaa ku taalla iminka oo baaba ahoo warshada ku taalla waxaa la odhan jiray sekatal yuhuud waa magaalo xeebeed xagga kalluunka iyo caan ku tahay magaalada kalluumaysiga iyo waxyaabaha badda lagala soo baxo ayay caan ku tahay waxaa kale oo jirta ay leedahay jasiirad bay leedahay halkan oo dalxiiska loogu yimaado saacadiin la yidhaahdo ayaa jirta oo dadka ay yimaadaan uga soo daawasho tagaan